والسلام على رسول اصطفى ثم ما بعد كلمة كوبان إن شاء الله تعالى وحين كنت المامنا سلامة الصدر سلامة الصدر waxaan u dooranay xilligan maanta lagu jiro dadkii way iska wada laalaadaan qof waliba qof buu ka laalaadaa waliba waxa ugu daran dadka qaraabada ah ee isxiga oo qofku walaalkii uu oranayo 10 sano ma wada hadlin qaar kamid ah aabahood baan la hadlin qaar kamid ah hooyadood la soo hadlin qaar kamid ah ay qaraabadoodii adeerkoodii abtigoodii habareerkood nacib yihiin limaada wax weyn dhamaan wax isku wada haystaan waa arin adduunyo arin diineed kuma culuubin maadaama aynka tahay waxaan jecelahay inuu kelmad kooban ka nidhaahno salaamad sadr laabta inaynu furno oo dadkan maxaabiista ah inoo xidhan aynu sii dayno haddaynu doonayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka badbaadno ilaahay baa quraanka wuxuu ku waa calaamaatu ahlu janna calaamaadkiisa waxaa ka mid ah salaamad sadriga wanazacna ma fi sudurihim min ghil jannada ma gelaysid ama lama gelayaba ilaa laabta waxa ku jira oo dhan laga safeeyo waana ogtiin xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ninka ahlu jannaha ay soo maray saxaabada ee rasuulku ku yiri ahlu jannaha inuu soo galay saddex jeer buu noqday nin qura ninkii markii la daba galay muxuu ku gaaray darajada jannada wuxuu ku gaaray habeenkii ma seexdo hadii qof qurahay qalbigayga wuxuu jiraan dabeetana waa kii saxaabigu lahaa la joogay ee saddex habeen la seexday wahada ma nutiq shayga aanan awoodi karayninba waa ka ilaa xilliga aan way jirtay in qalbiga wax lagu hayo laakiin maxaynu u baahannahay qalbiga inuu furno sii dayno salaamo sadriga qisatu abu dar waa ogeydeen barkii bilaal uu ku yiri waxa tahay inuu hooyo madow nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo canaantay waad ogeyd ayarta umma dabeetana markii dambe wuxuu yiri intuu jiifsaday wuxuu ku yiri iga gooso waxa doontana igu samee wax weeyaan si aad markaa raali u noqoto wuxuu doonayay markaa inuu sii daayo qalbiga uu ka sii daayo bilaal waa kiiska saamaxay inuu madaxa kaga joogsado baan u ogolaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisa saxiixa waa garanaysaan ahlu jannaha waxa ugu badan rajul makhmuum saduuq lisaan marka saduuq lisaanka way garteen qofka run sheega badan la waanu garanay makhmuumku waa maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu ku yiri waa qof kasta oo markaa qalbigiisa uu yahay raqiiq oo qalbi jilicsan oo dadka uu naxariis badan oo furfura oo qalbigiisa waxba ku jirin yaaniga dadka saamixitaan badan oo cafi badan dhamaanna waxyaabaha qalbigan baabi'iyay ama madoobeeyay ama dilay waxa kamid ah amraad loo yaqaan amraadul qalbiga amraadul qalbiga waxa kamid ah xasadka waxa kamid ah xiqdiga waxa kamid ah markaa dhanniga iyo waxyaabaha qofku shakiga uu ku sameeyo dhamaana waxa ina dilay maanta dadkeenii inagu wada diray mid wala mid buu ka laalaada wallahi salaanta kama qaada hebel wallahi marka halkaas soo maro ima eego wallahi wajigiisu ima furna waa wada shaki weey talabaad waxa weeyaan xasad baal xasad la yiraahdo oo marka aad moodo in dadkii lagu saliday waxyaabaha marka qalbiga ciriiriga ugu wacan buu kamid yahay waxa kamid ah xasadka waxyaabaha ugu badan ee maanta uu haysto waxa kamid ah inuu haysta inuu yiraahdo qofka isaga ma aragta ha wallahi waan nabcay hadad gudiso tala maxaad ku nacabtay wuxuu ku oranayaa waan iska nabcay ka haddaad sii wadiso wuxuu ku oranayaa wallahi jinkayga nacab waxaynu maraynaa xilli qofkii aan wax idin dhex mariba ma jiraan horta kii wax idin dhex mareen halkan noo dhig mid aan waxba idin dhex marin waxaad leedahay jinkayga nacab waa adiga ma jinka horta ku maamula mise adiga islaamnimada iyo shariicada ku maamusha maxaa kugu saliday jinkayga nacab iyo waxaan waa xasad un wey xiqdi iyo xasad baa halkan ka buuxa waxaynu u baahannahay in aynu qalbiga furno oo muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inu cafino waxa ka mid ah maxaabiis baa ku xaraysan habeen walba oo aad midaad qaniinsan tahay midaad xasad ku haysato midaad xiqdi ku haysato midaad maalin isku yar dhacdeen weligaana sii dayn maysid maxaabiista hadda sii dayn wadaadna maxbuus bada ilaahay agtiisa ku noqonaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam camalka waa la rafciyaa saddexii maalmoodba khamiis waliya siniin walba waa la rafciyaa samada loo rafciyaa laakiin waxaan la rafcinin waa maxay laba maan la rafcinin mushrik iyo markaa mushaaxin qof markaa dee shirki la yimi camalkiisa dee lamaba qaadayo lama aqbalayo ka kale waa mushaaxin waa mid dadka caloosha ugu hayo qalbiga saa uga laalaada arrinkaasina waxa weeyaan dee adigun baa maxbuusa adigu waxaas lee dad baad haysataa oo hebel saamax baa lagu yiri war saamaxnaakum baa dadka hala saamaxo wallaahi kii waxaa nagu sameeyey saamixi mayna buuri in odayaal laga hayaa waxa la war halaysa saamaxo wallahi kuwii sanadkii dhaweyto ramadaan carafadii dhaweyto ariga naga amaaday in reemiye baa intaas u buuxay moogta arigaas u buuxay inaana saamaxaynin balka ari baa laga amaaday adiga maxaa laga amaaday kaasina inuu iska saamaxo weeye ka ariga laga amaaday quliis inuu iska saamaxo weeye maruu insha Allah deynta u soo celin doonaan waliyacfu waliyasfahu ala tuhibuna yaghfir Allahu lakum ilaahi subhanahu wa ta'ala Abu Bakr qisadiisii waa ogtihiin Mustah ibn Thawal markii uu wali inantiisii caayay ilaahi baa subhanahu wa ta'ala ku yiri saamax maxaad u saamaxaysaa
dee alaa tuxibuuna yakfir allahu lakum adigu maanad jeclayn lagu saamaxo adigu habeen walba waxaad leedahay dambi dhaaf maalin walbana waxaad ka laalaadaa 10 qof baad hareeraha haysataa leedahay kaa sii dayn maayo ilaa aad adigu wax saamaxdo adigana lagu saamixi maayo waayo waxaan lagu saamaxaynin dee qalbigaagii baaba markaa cid kale ka laalaado xiqdigii xasadkii iyo wixii mushaaxinkii ila yiri camalka lama rafciyo adigaaba ahba ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu leeyahay walkaadimiina alghayda walcaafina can innaas wallahu yuhibbu almuxsiniin waa kuwa markaa caadada celiya isku celiya waa kuwa dadka cafiya waa kuwa markaa dadka iska cafiya wey marka inaad dadka cafidaa adigay dantaada tahay waxaynu walaal doonaynaa inaynu kelmadan iyada uga faa'iidaysano qaraabada dadka isugu nacabi maanta wadankeena waxa weeyaan ama muslimiinta intooda badan waa dadkii isxigay qaraabada ah waxaad arkaysaa qof habaryartii iyo hadaad maanta weydiisood ku taa goorma kugu dambeysay inaad la hadasho ama u tagto wuxuu ku wallahi niyow ciidi carafa ay ugu dambeysay walimaada waxa laga yaabaa inuu aad col la tahay maxaad kula coltay dad weydiiso wuxuu ku oranayaa oday adeeraa beri ii sheekeeyo wuxuu igu yiri kaasi ka adeerka ku abaaragtaa beri buu aabaha caay aabaha beri hore dhintay adigu kuma sheegin beri buu aabaha hal ka qaadayo reerkaasi weyna nabcayeen weligeynba war hashiina beri hore dhimatay aabahana beri hore dhintay adiga waxaan adeerka ka laalaadiyay waa maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka doonaya in cimriga loo dheereeyo risqana loo ballaariyo riximkiisa xiriiriyo war maanta hadii lagu yiraahdo 10 sano lagu darayo cimrigaaga laakiin adeerka orod soo salan maxaad yeelaysaa wallahi madaxii mijaadka soo dhunkanaysa laakiin waa maxay arinta ina haysataa waxa weeye war baynaanu hayninba wala risqa ku ballaaranaya cimriga lagu dheereynaya qaraabada aad xiriiriso maadaama risqii lagu ballaaranayo cimriga lagu dheereynayo xiriiri adiga xudoona kugu sameeyo weliga colaha kula ahad adiga maxaa ka galay u tag salaan guriga soo fadhiiso qisadan ugu dambaysiinay waxa weeye aruntii jecelahay inaan ku soo ururiyaa qaar kamida baa wuxuu tilmaameen in ay dhowr iyo 20 sanadood risqa lagu adkeeyay wuxuu yiri waxaan baac mushtar baan ahayo wuxuu yiri haddaan alaab qaado way gubataa maalintii dambe baan waxaan ogaaday sheekh baan ka dhageystay buuri qaraabada la xiriiriyo dabeetana waxaan ogaaday buuri gabadha aan qabo oo aanu ilmaadeen rumanahay inaan u diiday reerkooda oo dhan weligood uma tegi kartay iyana kuma iman karaan waxaan ogaaday buuri anigu jeel samaystay gurigeyga kamid ah maalinta maanu imi waxaan ku iri adigu waxaad u tagaysaa reerkiinii wiiga soo socda khamiista soo socdana waxaynu casumaynaa walaalaha iyo baynu casumaynaa iyo reerkiinii gabadhii farxad aawada way ooyday buuri maalin dhabe ooyis waana masiin kar waay buuri markii dambe aniga naxoosay adaa wuxuu geystay maxaa dhacay baan ku ruxaytay weligay ismaan lahayn kelmadaas uu ku oranay ninkan waanu casunay markay is arkeen 20 sano dhow baan is arag markay ay is arkeen way isku ooyeen buuri iyadiina wuxuu wiigi dambaan israacnay guryahoodii baan soo tusay caruurteedii buu reerkii u tagtay waan soo noqday buuri muddo 3 sanadood gudahooda ayaan taajir noqday buuri wax alla waxaan qaadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyay buuri limaada show aniga aban war isu haynay jeel arlada korkeeda ah oo aan ummadiiba kale riximkii kale ilaaliyay aniga lafteeda riximka bay ahaanooda ilmaadeer baan ahay buuri markaa maan isugay buuri waxaan doonayaa marka inaan walaal uga faa'iideysano inuu salaamatu sadr laabta inaynu xaadno oo xallo markaynu laabta xalle aynu xaadno ay inagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina barakeynaya ubadka ilaahay inoo barakeynaya oorida ilaahay inoo barakeey risqiga inoo ballaarinaya qaraabadu aynu xiriir fiican u sameynayna arrinka isaga waxaan doonayaa dhahdo waan ama jin hala colaada ama la colahaanine aynu saamaxno dadkan inoo jeelka inoogu xidhan aynu sii dayno markaas ay ilaahayna jeelka aqaabtayna sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi